الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آد بان أفرح سنة هي مانتين أقصى لابنو عاصمة كوا كبرية بوساسو بنتلان سيدا مدحينو الشيء أنه كان نجد سعودة القاعتي سجال بريء كنت نقول لك اسمايو ولا جه اللي لجو قبت الشركة مدرسة ولا تشيبة قد سعود كالصوماليات آد بان أمها نغينا المدحضة إيه شعبك reer boosaaso soo dhaweyntoodii wanaagsaneeda maanta aad noo soo dhaweeyeen aad baan uga mahadnaqayaa marka hore marka labaad waxaan rabaa inaan aad mahad ugu noqo runtii dadka reer Jubbaland madaxdooda madaxweynuhu ugu horeeyo iyo shacabka reer Kismaayo oo runtii si aad iyo aad u wanaagsan noo soo dhaweeyay hospitalitygoodii iyo soo dhaweyntoodii iyo martigelintoodii inaba aan la quuri karin aad iyo aad ugu mahadsan yihiin shacabkaas aad baan uga mahadnaqaynaa waxaa soo dhamaaday shirki dabcan wixii ka soo baxayna shalay waxaa iyada oo idaacadaha iyo telefishinada meel walba la hadlay ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliyeed Cumar Cabdishaaq Ali Sharmaarke kana hadlay wixii laga wada hadlay ee waxa loo balansan yahay runtii lama oran karo shirku guul darro ku soo dhamaaday dabcan Soomaaliya meesha isugu timaadaba wax badan baa laga hadlayaa masiirka dalka weeye wax sahlan oo marka qaarkood go'aamo degdeg ah lagu gaari karo ma aha marka isjiid iyo dooda dheer iyo wada tashiyo tira badan waa ay jirayaan laakiin waxaan aaminsanahay ugu dambeynta wuxun Soomaaliya dan oo Puntland runtii shacbiga dan oo inay ka soo bixi doonaan wada hadalada dambe loo balansan yahay idin sheegay waxa weeye anagu ka xukuumadda Puntland waxaan meesha geynay waxa weeye wuxuu ahaa mowqifkii shacbiga reer Puntland way hadleen cod dheer bay ku hadleen fartintaas ayaanu qaadnay meesha geynay dabcan sidoo kale shacbiga reer Puntland waxay noo wakiisheen in aanan Soomaali ka go'aynine Soomaali wixii dan u ah oo wixii tanaasulaad oo ka suurtooba shacbiga reer Puntland meesha inaan geyno dabcan boqolkiiba dadku qof walba wuxuu rabo ma u helayo waxa laga hadlayaa waa masiirka dalka waxa laga hadlayaa waa dhismihii dawlad qaran way waxaan ka hadlaynaa qof walbaana mowqif buu leeyahay aragti buu leeyahay marka in la wada hadlo la soo dhawaado la soo tanaasulo wax badan boqolkiiba boqol kasta ma heli kartee wixii tanaasulaad oo suurtagal in la suubiyana shacbiga Puntland raali bay ka yihiin waana inagu direen saasay inagu direen annagu marka waxaan buugnay waxa ay fartintii shacabka iyo rabitaankoodii iyo sidoo kale waxa naga suurtagal ah oo Puntland ay ka tanaasuli kartana meesha aan u geynay waxaan rajaynaynaa marka in ugu dambeynta la isfahmo qof walba uu ogaado cid kaligeed u dhismi kartaa ma jirto cid kaligeed gooni u ahan karto dawladna ma jirto waxa loo baahan yahay marka in la fahmo oo danta guud laga hormariyo maslaxadaha khaaska laga hormariyo maslaxada markaas qofku isleeyahay gobolkiisa kaliya ayay dan u tahay marka waan rajaynayaa marka insha Allah in wada hadaladu sii socdaan ugu dambeyntiina ay guul ku soo dhamaadaan waxa kale oo raba inaan yar ka iraahdo arrin baliyahan raadiyaasha laga hadlayay la soo jawaabay ku saabsanay arrinta shiicada waxa weeye shacbiga Soomaaliyeed meel kasta joogaan iyo gaar ahaan dadka Puntland ku nool waa shacab muslimiin oo sunni ah weeye cid hadda u qareemi karto shiicanimo ugu qareemi karto dalkana ma ay jirto qofku ama ha ahaado xil dawladaha iyo aysan haynina cid hadda u qareemi karta oo shiicanimo ugu qareemi karto dalkana ma ay jirto dadkeenu namana soo gasho shaqana kuma lihin Puntlandna wax raad ah oo noocaas aan ku ogahay ma jirto waxaan ka ogolaanayno inay raad ku yeelatana ma ay jirto marka taasna dadka raba shacbiga reer Puntland inaan u sheego una cadeeyo arrinta iyada marka taasna dadka raba shacbiga reer Puntland inaan u sheego una cadeeyo